fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficleyn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka daawadayaal ijeedayaal idaymodayaal ifiiriyayaal idhugtayaal idhehdayaal eegayaal abbayaal hooyayaal abaayayaal aboowayaal abti adeeryaal aaya eedayaal awoowe amooradiisa ayeeyayaal abshaxan ilaa awuulanyaal jiiraanyaal muluqyaal ilaa mas-uuliyiinyaal madaxweyneyaal xildhibaanyaal culamaa udiinyaal maclimiin dugsileeyaal kitaabtoodyaal maclimiin iskooleyaal ardaydoodyaal ganacsatayaal sarifleeyaal asxaab yaal dalka joogayaal dibadda joogayaal tuulo joogayaal degma joogayaal ilaa geel jirayaal dhammaantiina waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan maanta waa maalintii labaad ee ciidul adxaa dhammaan ummadaha muslimka waxaan ilaahay ugu baryaa cimri dheer iyo caafimaad khayr qabo cibaado suuban iyo dembi dhaaf sanadkan sanadkiisna ilaahay inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ama cimri iyo caafimaad cibaado suuban iyo dembi dhaaf wax ka fiican mala helaayo ku soo dhowaada barnaamijkiina faaliyaha qaranka waa ku farxaa foolalkiine iyo fahmadiiniye foormada ood u fadhisiine waktigan oo kale waa insha allahu aniga soo fadhiisahaa waktigan oo kale waani soo fadhiisahaa faaliyahaan soo farjihaaye fiirsadayaal very nice ya anfarehe wixii bafulo waa soo fasaxaa ciid mubaarak wacaleyna wacaloosha ku soo dhowaada qodobka koowaad ee faaliyaha qaranka maalmahan magaalada dhinaca siyaasadda waa kacsan tahay waxaa laga dareemaa guux siyaasadeed inaas jiro ya waxaa la sheegoyaa waxaa la qaadi waxaa la xawili waxaa la dhiibi siyaasadda xanuuna ku dhacay lamadaan beri guuxa siyaasadda waa kacsan yahay luuqid gashid jidkiid martid meeshid joogsatid waxaad maqlay waxaa la xawili waxaa la qaadi waxaa la dhiibi waxaa la baasi waxaa la karoosi ilaa fool ku taala waa qodobka koowaad ee faaliyaha qaranka iyo eegayaal qodobka lamaad ama qorobka lamaad wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa isbuucan si indha la'aan ah u dafirtay ama ay beenisay inaysan jirin rugta ganacsiga soomaaliya wasaaradda ganacsiga soomaaliya ayaa isbuucan si indha la'aan ah u dafirtay ama ayba u beenisay inaysan jirin rugta ganacsiga soomaaliya ayadoo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ay fiirinayeen ayayba ku indha caddaysay wax la yidhaahdo rugta ganacsiga soomaaliya ma jirto yaa dhahaa wasaaradda ganacsiga soomaaliya dheheysaa waa qodobka lamaad ee faaliyaha qaranka i eegayaal qodobka saddexaad maxaabiistii etoobiya laga keenay ayaa ciiddii la ciiday ummadda soomaaliyeed ama ummadda
soomaaliyeed ayay la ciideen ee walaalahooda ahaayeen maxaabiistii laga keenay Ethiopia. khayre qalbigaad khaluubtood degtee khaalingeel lagu khalaad u khalantaa qadirka khayma ku siiye khayre waa kugu qaadanaye. Soomaaliya ha noolaato, dowladda farmaajo ha noolaato. maxaabiistii Ethiopia laga soo deey oo alla hoosana xirnaayeen, caloosha dhan dadka ka huryahaayeen, ilmahood iyo naagtooda iska hilmaameen, qaarkood tacsiidood la dhigi. waa la socotiin waddanka inay dib ugu soo noqdeen. shalay waxay la ciideen shicibkooda walaalahooda Soomaaliyeed ya maasha Allah, waxayna ku ciidaayeen liido. mid walba yaa salaamay markii la dhaho waxaas leeyahay waxaan salaamaa xaaskeyga ma dhahaayo, waxaan salaamaa walaalaheyga ma dhahaayo, waxaan salaamaa waalidiintay ma dhaheenin. waxaas dhahay yaa salaamay markii la dhaho waxaan salaamaa maxaabiista saaxiibaday ahaa oo weli aan xuriyadooda helin, waana u ducaynaa. wallaahi weli bakhaar baa gabayo tiriyey. inta dhiman ee Soomaaliyeed ee ku jira jeelasha adduunka ama dalalka anjaarka nahay sida Maxamed Awees Mudey, boqorka bartamaha. ilaahay iyagana waxaan ugu rajaynaa salaaman aaminiina, ilaahay inuu sami sucaado ay ugu soo baxaan ilaahay idinkiis. khayre waxaan leenahay naqo, laa taqniduu min raxmat illaahi. khayre naqo, inta ku dhiman soo dhammaystiro. shaqadaan aday ku taalaa, shaqadaan aday ku taalaa khayre. daawadayaal iyo eegayaal iyo jeedayaal, qodobka afraad waa wargeysyada iyo waxaa ay qoreen oo markashaato namarkashaato meehani nooga soo jeediyo ee boogey maki xaaji banaadir. laakiin hadda ma dhihi karno, waxaan dhahaynaa abwaan xaaji maki xaaji banaadir. kalaa ku darsantay maki xaaji banaadir lemeno haddana hormartay xaaji maki xaaji banaadir. daawadayaal iyo eegayaal iyo jeedayaal, idaymoodayaal iyo dhugtayaal iyo dhehdayaal, A to Z yaal, mar lamaad Mauritania ya again anigu naqo warka horabari uga doorka roonay. maalmahan magaalada Muqdisho jiiradid gashid, luuqid martis, biibitidid fadhiisatid ya meeshii saanta aad geesid, tugtug hadid raacdid, caasi raacdid ka degtid, caasi raacdid ka degtid, taxi raacdid. saddexdaasna hariifay isku yihiin. ina taree kor shaahi dhan guuxa siyaasadda waa kacsan tahay. waxaad maqlaysaa waxaa la xawili, waxaa leedahay dahabshiil maa laga xawili. haddana koo kale waxaa la dhiibi, waxaa leedahay turkiga ma wax dhiiboy antee abo haddii dhaad wax kale isku sheegaa. koo waa ku dhaha waxaa la karoosi, waxaa leedahay cayaartii xalimiya. koo waa isku dhaha waxaa la baasi. siyaasadda xanuuna ku dhacay. marka ilaa fool ku taalaa, fool ku taalaa. warkaana waxaa noo soo diyaari oo noo soo deehaa oo soo duuduubi ya abbahaa ku soo dhawaaw. reer inda nagu soo taagayaal, waxaan ii sheegaynaa barnaamijka faaliyaha dhexdiisa qodobka idinkugu sheegaya waxa waaye dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed waxa waaye ummad isjecel. ninkii ciji gaarta ama ninkii suul gaar ama ninkii oo candhuuf ku tufmato waxay jecelyihiin isku si inay ugu xanuunsadaan. mar walbana shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda oo iswataan waxay ka xanuunsadaan muwaadinka Soomaaliyeed cufk isjiidadkiisa 6 mitir per second cubic uu jacalool as yahay. muwaadinkaas inas dhibaato as ku arkin Soomaaliya gudaheeda iyo caalamka oo dhan inas dhib ku arkin. shacabka iyo dowladda har iyo haween ay ka shaqay jireen. hase ahaatee social mediaha waxaa buux dhaafi jiray oo comment iyo like iyo share
24 saac shacabka Soomaaliyeed ay ku soo diri jireen Facebook-yada bilyan malaayiin comment iyo share iyo like oo malaayiin ah ay dowladda sumcadeeda iyo waxqabadkeeda ay ku sheegi jireen laakiin isbuucan hadda la soo dhaafi wixii like ahay iyo wixii share ahay iyo comment dhammaan social media macal Facebook ilaa YouTube waa lagala naqdi share iyo like yaraantaas oo social mediana waxaa keeni horta madaxweynaheena sharafta leh mudane farmaajo iyo ra'iisul wasaaraheena khayre dad shaafta yaqaana ma iyo maqas iyo huuy ma yaqaanin waa dad leh wadaniyaal oo daacad ah laakiinse dad kale ma laga waanayo oo ku dhex jiro oo shaaftada iyo maxasaay maqasta aad u yaqaano oo sakiin toobaas wato malaay saafidka aad u sasari yaqaano taasna waxaa aan ka wadaa mudane qalbi dhagax oo ka tirsan jabhadda ONLF oo dowladda gacanta u gelisay ee waddanka Itoobiya qalbi dhagax waxaas ku sugnaay gobolka Mudug hase ahaatee u soo isdhahooyo waddankaaga joogta ummadaada ku dhex jirta aashaafta ku maqastiiba abu afduub dhakab lagu sii waxa las arkiba waaga hadisku bari u soo Itoobiya dhex joog u soo dhan waa yaawi adduunka ilaahay waxa uu xun nabar ad fileeni inaa mindi joq lagugu siiyo arrintaasna dowladda xagga shacabka markii la dhaho waxay waayeen commenti iyo like iyo sharekii mas-uul walba dowladda lagu ammaani jiray arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay sidaad la socotaanba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo golaha shacabka haddii aan fiirino maxay ka qabaa arrintaas oo fikire war dhammaantoodan ku dhahay dharka xataa inay iska jajeexaan wax yaraa u dhimnay indhahooda waxaa dhehaysaa daaf maa ku dhacay dadkan sis u gadgaduutima malee kartid ee uu carroodeen hadallada xildhibaanadana waxaa ka mid ahay waa nasiib darro inay dhacdo arrintaasi waana shoogsannahay annagu hadda waxaanu ku jiraa muxuu ahaa waa rumaysnaan waa waxaan rumaysan weynay weeye dee anigu waa khatar baanba ku jiraa haddii la dhiibay ninkaas annagana waana la dhiibahayaa berri dadkeeda dalkao dhan waa la dhiibahayaa marka waxaanu u dhigannay iyo waxaan sugaynayna maaha dowlad aanu ku taageeray waddaniyad ku taageeray daacadnimo ku taageeray muxuu ahaa inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u shaqaynayso midaynayso bay ahayd cidda falka iska soo saareen cidda falkaan gashay shacabka kalsooni weynay ku qabaan dowladana ma wada xumo laakiin dad waxaa jira oo dowladda ka faa'iideysanaya taasna waxay keentay sheerkii iyo commentigii shacabka ay ka bixi jireen waxqabadka dowladda inay dib ula naqdaan isbuuca soo socdana waxaa loogu fadhiyaa isla dowladda commentigii iyo sheerkii iyo like-gii inay dib u soo celiyaan maadaama wax kasta hadda oo dadka ra'yigooda ku dhiibanaya asnaqday online waxaan ka wadaa dowladda dhaliilaheed la sheegayaa laakiin haddii arrintan dowladda ay ka hadasho ama wax ka qabato waxaa laga yaabaa like-gii iyo sheerkii ina soo noqdo faaliyaha qaranka Universal TV abaha Muqdisho qodobka labaad eegayaal wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa isbuucan si indha la'aan u inkirtay u difirtay in aysan jirin ama u beenisay inaysan jirin rugta ganacsiga Soomaaliya yaa dhaha yaa la beenihaa waxaa la beenihaa rugta ganacsiga Soomaaliya yaa beenihaa waxaa beeniyeysa oo ma jira dhahdi wasaaradda ganacsiga Soomaaliya okay rugta ganacsiga Soomaaliya wax jira ma ahay dhahday ayadoo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga ay fiirinooyin ayayba ku indha cadeysay yaa indha cadeeyaa waxaa indha cadeeyeysaa wasaaradda ganacsiga Soomaaliya yaay ku indha cadeeyeysaa waxay ku indha cadeeyeysaa rugta ganacsiga Soomaaliya warkaanina waxaa noo soo jooji oo ku soo jiifti oo hee soo jalboodiyo junior ku wataa oo meehaaney ka soo jeedihaa waa Maxamed Weli Xaaji John Maxamed Weli
xaaji john oo ku magac dheer abajonka john abajonka juniidaas oo dhigaa ku iri wixii ku jirana soo farji sida la og yahay ama laga warhayo maamul kasta oo la sameeyo waa inuu shaqo qabtaa shaqadaas oo ah shaqo muhiima ama uu ku caanbaxo ama uu sumcad ku yeeshto si markaasi loo ogaado ninka wixii uu qabtay iyo wixii kale haddana inta badan waxaa dhacdaba markii la sameeyo maamul oo ama shaqo loo diro shaqadii loo diray inaysan qabanin oo ay mid kaleba qabtaan sida ay inta badan u badan yihiin afrikaba ay u badan tahay ama caanka ay ku tahayba taasi waxaan uga gol leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo runtii wiigan ama sitimaankan xoogga saartay wasaaradda inay inkirto rugta ganacsiga taasoo runtii ayba tiri maba jirtaba wax la yiraahdo rug ganacsi la yiraahdo ma jirto inay tiraahdo ayay wiigan xoogga saartay iyadoo la ogsoon yahay rugta ganacsiga inay jirto horena u jiri jirtay oo weliba dad waaweyn oo sumcad iyo sharaf leh ay joogaan oo ay madax iyo maamulba ka yihiin ayay haddana tiri ma jirtaba wax la yiraahdo rugta ganacsiga rugta oo horena u jirtay horena u shaqaynaysay haddana shaqaynayso oo muuqata iyadoo warqad dheer ku soo qortay ama ku soo qeexday inaysan jirin rugta ganacsiga hadda kadibna doorasho iyo hadda iyo kow abaabul ay geli doonaan oo hadda wixii ka dambeeya la abaabuli doono hadda kow tahay ayay warqad dheer ku soo qortay ay ku soo diyaarisay arrintaasi oo runtii dadkii oo idil si aada uga qayliyeen oo wax badan ay ka hadleen haddana si gaara ay rugta uga hadashay faragelinta ay wasaaradda ku sameynayso rugta ganacsiga mar ayagoo arrintaas ka hadlayeen waxay yireen rugta ganacsiga laguma magacaabo wareegto xilligan maanta jira rugta ganacsiga iyada isdoorata mas-uuliyiinta hogaaminaysa iyada doorata den wareegto laguma kala diro ummad isdooratay waxay ila tahay arrintaas marka xeeryaqaanka ama sharciyaqaanka yaa arrintaas dabagalkeeda iska leh ganacsatada guud ahaan meel kasta joogaan waxaan u soo jeedinaynaa danta isma hortooy hays hallayn baa leeyahy dan baa naga wada dhexayda shirkaan nahay macaamilo guud iyo mid gaara naga dhexaysa aan ilaalinno saan u ilaalin jirnay horena ugu ilaalin jirnay aan u ilaalinno inaan danaheenna ganacsi aan dhowrno wadajirkeennana aan dhowrno horumarkeennana aan dhiiri gelinno in faragelintaas iyo xukuumadda runtii aan hubno haddaba inay gacanta ku hayso qadiyadaas aan jawaabteeda ka sugayno intaas un baan rabnaa inaan u sheegno ganacsada soomaaliyeed iyo mujtamaca intiisa kale annagu ma diidanin xeerka iyo shuruucda dalka inaan qeyb ka ahaano dhexdana uga jirno waa ku qanacsannahay laakiin in xeerka soo baxay uunan ka turjumayn qeybna ka ahayna noo muuqatay taasaan ka cabanaynaa waxaan rajaynaynaa in arrin ku saabsan qoraalkaas aan saxda ahayn in mar dhow soo bixi doono insha allah waxaan rajaynaynaa in isfaham iyo is-afgarad ay ku dhammaato arrintan oo la xaliyo ayaan rajaynaynaa haddii allaha awoodda leh saamaxo maxamed weli xaaji axmed faaliyaha qaranka universal t v muqdisho qodobka saddexaad siyaasadda guuxeedoo kacsan wax baa la karoosi wax baa la dhiibi wax baa la xawili saan ugu dhex jirnay haddana waxaa soo baxay shiikha weyn ee la magac baxay sheekh maxamed idriis bal asigana karooskaas iyo dhiiboogaas iyo xawilaadkaas la sheegayo bal shiikha asigana wuxuu fikir ahaan ka qabo ayadana daawasho wacan oo wanaagsan waxyaalaha maalmahan social mediaha waxyaalaha ka socda waxaa ka mid ahaa ninka la yiri oo soomaaliga ah oo jabhadda ogaadeeya ka mid ahaa oo la yiri Ethiopia ayaa loo dhiibay warar badan baa meesha isdhex yaacay dadkiina
nin walba siduu doono ayuu uga hadlayaa horta sideedaba war hadduu soo yeero ama aada maqasho maxaa kaala gudboon horta waa taas qofka muslima markaa tahay war haddii aada maqasho maxaa kaala gudboon waxa kaala gudboon waxa weeye kow horta inaad hubsato warkaas aada maqashay ama soo yeeray ama la sheegay ma yahay sida loo sheegayo ma yahay ma waxbaa ka kala dhiman ma dhammaystiran yahay warkiisu dulucdiisu maxay tahay waa inaad hubsato horta arrinka ugu horeeya kaas wey waa arrintaasu cad haddii ay dhacdona dadku dareenkooda inay ka cabiraan oo ka dhidhiyaan waa arrin ay leeyihiin laakiin waxaa muhima in wax la hubsado ayaa muhima saas ma u jirtaa oo ma tahay wax sax ah dowladda soomaaliya inay ninkaas soomaaliga ah isaga oo khasban u dhiibtay dowladda etoobiya taasa horta inaan hubsano anigu waxaan la xiriiray ilo muhiimah oo dowladda ka mid ah waayo dee sidii ay sheegaynay waa inaad wax hubsataa ilahaasu muhiimka ahi waxa ay ii sheegeen waxaa weeye ninkan akhbaarta ku timi arrintiisu waxaa weeye wadahadal baa u socday isaga iyo etoobiya waa wararka iluhu sheegayaan ilaahay iyo allahood laakiin annagu haddee waxaan leenahay inaan u celino warka meeshiisa yacni ay ka imanayso oo asalka u ah nimanka la leeyahay waxbay dhiibeen oo ah dowladda soomaaliya waxay leeyihiin ilahaasu ninkan wadahadal baa u socday isaga iyo etoobiya inuu si nabadgelye ah ku tago arrimaha siyaasadda way dhacdaa jabhadaha way ka dhacdaa qaar inay ka soo baxaan qaar inay maaragtay la heshiiyaan shalayba yacni taliyo weyn oo ka mid ahaan jiray shabaabka ayaa dowladda soomaaliya u yimi oo xamar laga soo dejiyey abu mansuur robo ayaa laga soo dejiyey marka way dhacdaa oo wax gariib ah oo aan yani dhicin ma aha in jabhad qof ka soo baxo ama uu ra'yi kala qaato horay bay u dhacday jabhado badan oo ka jiray soomaalida ahaa oo ka dagaalamayay etoobiya ay la heshiiyeen dowladda etoobiya okay warku marka aan dhamaystira waxa weeye ilaa wareedkaas waxay leeyihin ninka arrintaas saasay ahayd dowladda soomaalidu way fududaysay keliya rabitaankiisa isagayna ahayd sidaas warar u socday bayna ahayd isaga iyo etoobiya intaasuun annagu marinkii un baan fududaynay waa sida warkooda uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku leh mowqifku wax kasta ha ahaado sida ay soo qortay maanta joornaalka washington post ee dalka maraykanka ka soo baxa wuxuu ka wariyey wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya joornaalka washington post wey warkiisi maanta khabarkiisi wuxuu leeyahay associated press u sheegay wakaaladda wararka associated press la yidhaahdo ayuu wuxuu u sheegay taliyahaas ama qoladaas wasaaradda etoobiya ahi waxay u sheegeen inay ninkan wada hadal u socday si nabadgelyo ahna uu ugu yimi yeegayaal qodobka xiga maxaabiistii laga keenay etoobiya
ee muddada dheer ku jirtay ayaa shalay ciidul adxaa fadligeeda kula ciiday shicibkooda soomaaliyeed walaalahooda soomaaliyeed waalidiintooda ilmahooda oo la ciiday waxayna kula ciideen xeebta liido dhammaan maxaabiistaas markii lala dhex qaaday warbaahiyaha ee la yidhi war adigu yaa salaamey war adigu yaa salaamey war adiga yaa salaamey qof walba wuxuu ku degdegaa aniga waxaa salaama aniga naagteedaa salaama adiga salaame aniga ilmaheygaan salaama adiga salaame waalidkeygaan salaama adiga salaame waxaan salaama facebookgaan salaama adiga ayaga waa ka duwaneed salaantooda taas waa ka duwaneed qof walboo ka mid ah maxaabiistii la keenay ee shalay ku ciiday magaalada muqdisho khaas ahaan liido maxaabiista haddii la dhaho yaa salaameey waxay dhahayeen waxaan salaamaa saaxiibadeyda maxaabiista ila ahaayeen oo aan weli xuriyaddooda helin ar soomaali waa isjeceshahay soomaali markii inta joogta le qorsagaar laisku qabahooyaa mahine wallahi haddii maxbuus la wada yahay waa isjeceshahay haddii macnaha banaanka la jiro waa isjeceshahay halahaan le hangalka laiska dhawooyaa mahine wallahi waa isjeceliyiin kii kasta waxaas dhahaa waxaan salaamaa walaalkeyga aan maxbuusta isla ahayn ee aan isla xirneen oo weli xoriyaddiisa aan helin waana u ducaynaa ilaahay waxaan ugu baryaa sida aniga aan xoriyaddeeda usoo helay asigana inuu usoo helo marka waxaan leeyahay kheere shaqadaan aday kuu taalaa kheere qabya ma kuga ogihi kheere qabya ninkeedaa dhammaystiro halahaanba ilaahay ka sokow dowladda farmaajo iyo kheyraa lagu heli mayno halahaanba inay soo baxaan madaxiinaa lagu heli kheere shaqada qabya a ka dhigin kheere shaqadaan dhammaysto qabya ninkeeda a dhammaystiraa as ahay warkoon maqleey aniga qabya ninkeeda dhammaystiraa waa inaad dhammaystirtaa inta dhiman ee soomaali maxbuus ah oo dalalkaas dibadda noogu xiran ayagana ilaahay xuriyaddooda ilaahay u ka soo kheyro bal usoo qeeli haddane walaalkeena ama maxamed awees muddey boqorka bartamaha bal asigana kuwa markaan la keenaayo walaalaha markaan la soo wadaayo inuu ku jiro oo hormuudka ahaado allaha noo kaso maasha allah kuwani waa maxaabiistii laga soo sii daayey xabsiyada Ethiopia waxa ay farxadda ciidda ku qaadanayaan xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana halkan ku casuumay maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir mid ka mid ah maxaabiistaasi oo farxad iyo qiiro ay ka muuqato ayaa goobta waxa uu ka jeediyey gabay uu ku cabirayay dareenkiisa xabsiyada ragii lagu dilay dooxataada qaaday in gabdhihii dahabka laga furto dumarku naafeeyey soomaalidu ka daaf iyo ka daaf qayla loo diraaye iyagoo danayna in inagula soo daayo odayaal duqowdiyo haddii culuma noo dooday oo ugaasyadii duubaneed hadalka loo diiday inagoo niyada duubanee aqaraa u daynay dunidii qurxooneed inaan dib ugu laamaynin hallaylehe dadaalkaad gashiyo dacadnimadaado dibnimaasigeennii markaad hadalka deeqsiisay hallaylehe dadaalkaad gashaa nagula soo daye dembi dhaaf ilaahayoo ku sii deeqankaago qaar ka mid ah raggan ayaan kala sheekaystay xaaladooda waxaana farxadda ciidda awgeed ay hambalyo iyo salaan u direen waalidiintooda caruurtooda iyo xaasaskooda shucuurteeda maanta waxaan ku kooban ma garan karayo marka la bardhigo beryaha qaar waxaan leeyahay maba qiyaasi karo shucuurteeda maanta dadka ayaa ka soo qayb galaya mas-uuliyiinta isku xisaartayna dee aad iyo aad baan ayaan rajaynaya inaan guul inta laga noolaa laaba aanu sii labalaaban khayrna u rajaynaya insha allah dareenkayga maasha allah maanta mid la soo koobi karo ma ahan waa noloshaydii waa maalintii ugu qiimaha badnayd farxaddii dunida igu qayb badnayd baan ku jiraa taa waxaan farxadaan weligeyga arag ma ahan maasha allah maanta dareenkayga aad mid la soo koobi karo ma dareenkayga ma aad u fiican yahay waxaan halkaa ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo waxaan halkaa ka salaamayaa dawladda Soomaaliyeed dhamaanteed ugu horeeyay madaxweynaha ugu hooseeyay booliska ugu hooseeyo halkaa ka salaamaya waxaan halkaa ka salaamayaa dadka dhibaataysan oo xabsiyada ku jiro aan maanta farxadda aan nolosha aan u helnay aysan u helin inuu ilaahay farxadda aan maanta ku jirno mid lamida ilaahay inuu siiyo
roodo cabdulaahi colaad oo ah guddoomiyaha degmada waaberi oo maxaabiistaasi ku casuuntay xeebta liido si ay ugu damaashadaan munaasabadda ciidda awgeed ayaa ka hadashay qaabilaadda maxaabiistu ay ku qaabishay halkaasi. waxaan halkan maanta isla joognaa wiilashii walaalaheen ahaa ee laga soo celiyey Itoobiya ka soo noqday maxaabiis ahaan looga soo daayay maanta si aan maxaabiis ahayn oo halkan joogaan oo aan joogno liido badii quruxda badneed qaarkood marka aan la sheekaystayna dhaheen masaajidka isbahaysiga oo aan saaki ay ku tukadeen yani aad ugu farxeen qaarkoodna ay dhaheen waxaan ugu dambeysay muddo 10 sano ka hor inay masaajidka isbahaysiga arkaan qaarka kalena halkan iyo badan iyo barwaaqadan Soomaali ee leedahay marka imaadeen ee aad iyo aad ugu farxeen oo ay yiraahdeen barwaaqadan naga soo horeyso waa nimco Ilaahay waxayna sugi laayihiin sida uga qayb qaadan lahaayeen soo celinta Soomaalinimada dhabta ah in ay wadanka ay kaga qayb qaataan. intii ay goobta ku sugnaayeen maxaabiistu waxa ay ku ildoogsanayeen quruxda xeebta liido iyo neecawgeeda iyaga oo halkaasi kula kulmayay taliyaha booliiska Soomaaliya guddoomiyaha degmada waaberi iyo madax kale oo uu ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir General Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa ka hadlay kulankaasi oo ay xeebta liido kula qaateen maxaabiista laga soo sii daayay xabsiyada Itoobiya. dawladdu waajibkeedu way gudatay laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay marti u yihiin gobollo kala duwan bay ka yimaadeen waa dad kala duwan marka la sheekaysatayna runtii waxaad dareemaysaa qeyrada iyo dawladnimada qiimaha ay leedahay sida ay u dhibtoodeen waxaan kaloo aan maanta markaan la sheekaystay aan ka faa'iidaystay oo runtii way aragnimo ahayd anigu waxaan soo arkay xabsigii Mandela oo ku xirnaa 27 sano oo 2 mitir ahaa waxbuu ka bartay wuxuuna gaaray waddankaas inuu badbaadiyo oo nabadiisa uu ka shaqeeyo waxaa nasiib darraa ummadda Soomaaliyeed maanta burbur iyo dhibaato dhowr iyo 20 sano lagu soo jiray in laga gudbo amniga laga shaqeeyo wixii naga halaaba la saxo iyaagayaal afaraad waa wargeysyada iyo waxay qoraan oo nabarka shaato alaaba aweso mehani no soo jeediyo ee boogay abwaankey makii xaji banaadir ya ma aha makii xaji banaadir ma aheno makii xaji banaadir waa m ma ha ba haddana ha hormarti xaji makii xaji banaadir xaji makii حاجي بنادر منو حاجي مكي حاجي بنادر حاجي مكي حاجي بنادر حاجي مكي حاجي بنادر حاجي مكي حاجي بنادر وحان قدها ما شاء الله ولا عزمي إلهي با عزمي وحانا لغو عزمي حجكا إن أو آذو سانقاتك إلين إلهي با وضو سانقاتك ربي قال له لعقان خوا حجكا ملغو تغو والله بالله لعقان خوا حجكا ملغو تغو ما خال لعق خبتا أو ببركن إلهي أكاوع واي الحمد لله إله أكسي أنا الله نوكسو أنا الله نوكسو إن شاء الله تعالى كسر هذا حاجي مكي حاجي بنادر أو ورجيس يدا يوحي أخريان هل كان نوكسو جديو حقا شاشدنا أنا وحيران قس كسيها صدوا مكي مع سند عبد المريد دراجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسر هذا برنامج كورجيسة وحيل ذا وكالات وقبرتين تي في عالمية يونيفرسال ستوديوز مقالة مقدشو داود يال تضوات كان برنامج كورجيسة وحنكسو قادنينا ورجيسكا لما قاعد بحي سعر برر خيبتيسا كوات ورجيسكا سعر برر خيبتيسا كوات بوجيسا مانتا وحو كدافوري ummadda Soomaaliyeed sicir barar been abuur bugta faalso suuq madow musuq maasuq dhammaantood waxay ku shamuumeen amaba ku aruureen danyarta Soomaaliyeed wuxuu yiri waa run waa la isku baahan yahay budo iyo biyo way isku baahan yihiin ganacsiga
wuxuu ku dhisan yahay beeso badeeco ku bedelo markii laga yimaado qarniyaal lacagta horteed waa la isticmaali jiray badeeco ku bedelo bur bariis ku bedelo saliid gaas ku bedelo yaanyo xulba ku bedelo benziin gaas ku bedelo waa iska dhici jirtay ileen waagaas lacagba lama aqoonin ayuu yidhi qoraha wargeeska sicir barar isagoo hadalkiisi si ambaqaadaya wuxuu intaasi ku daray maanta wuxuu yidhi dunida way casriyooday dalaan lacag lahayn adduunka kama jiro dal walba wuxuu leeyahay lacago uu ku ilaashado astaantiisa magaciisa sumcaddiisa sharaftiisa iyo waxa uu yahay annagase waxaan ka soo bilownay taano merjiyaan ku dilnay kumi waa suujini nishilin waa miijini shilin haraantiyaan ku dilnay 5 shilin sidaasoo kale 10 sii raaci 20 aka reebin 50 ku darso 100 ka sii soco 500 noloshaaba ku dugni 999 iskaalo aan kor u boodni alxamdulilah lug mana jabin murgac mana gelin khalooc mana gelin waxaan ku neebsanay kunkan duuga ah dushiisa aa la wada saaran yahay waxaa loo baahan yahay marka danyarta soomaaliyeed kunkan dushiisa laysugu yimid in aan laga ridin oo ay ganacsatada ka ridin horaan u sheegnay shalayaa sheegnay daraadaan sheegnay ka horaan sheegnay mar kastana waan sheegaynaa ganacsatooy midida daabkeeda adinkaa gacanta ku haya dadkana waa dadkiina dhowr maalmood dhowr magaalo iyo dhowr degaano hoos yimaada ganacsigooda ma toosna shaablaadto as ku jiraa maxaa geliyey sicir barar marka wuxuu yidhi qoraha maqaalka waxaan isxusuusinaynaa bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male beesada sarif male baaqi soo celin male beryihii aan lahayn waxyaabihii ka baqeenay dhibaatooyinkan ka baqeenay culeysyadan ka baqeenay ayaa dib ka soo ifbaxeene sicir bararkan baa hadda dheer bulshada soomaaliyeed shartiisa allow ka badbaadi kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuuntay buufisaa ku dhacay berigii aan lahayn waxyaabihii kan baqeenayaa dib ka soo ifbaxeene sicir bararkan baa hadda dheer bulshada soomaaliyeed shartiisa allow ka badbaadi barbaartii baagamuunda waaye bulshada shiid waaye beesadana kunaa u yar kunaa u weyn beryihii aan lahayn waxyaabihiin ka baqaynayaa dib ka soo ifbaxeene sicir bararkan baa hadda dheer bulshada soomaaliyeed shartiisa allow ka badbaadi halistiisa allow ka badbaadi shartiisa allow ka badbaadi shuruugiisa allow ka badbaadi shuushkiisa allow ka badbaadi ayuu ku soo khatimay wargeyska sicir barar bogiisa maanta qaybtiisa koowaad qaybta labaad waa inoo toddobaadka dambe hadduu alla qadiro iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ahayd wax ka baro sugaanta iyo maamahooyinka soomaaliyeed walle duub abwaan baan si taalley dardari maayo walle duub abwaan baan si taalley dardari maayo dib in ley barana uma fadhiyo dalkan ka soo jeedo
dareen laashimeed bay igu jiraa qof la diraa maahi anays dira dalkan ka hadlayaa isla dalkaygii ah dadka aan ka sheekaynayana waa isla dadkaygiiba dadka aan ka sheekaynayana waa isla dadkaygiiba weliba dadkaygaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dantoodaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dantiisaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda danteedaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dantoodaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda danteenaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dadkaygaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dadkaygaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda diintaydaan u qiiroonayaa doqoni yeelkeeda dawaaqtinka halkaan uga socdaan idin dareensiine isdejiya dalkiyo dadkan u tura diriirtan sooyaalka qaabkii looga daawoobi laha furo dariiqeeda qaabkii looga daawoobi laha furo dariiqeeda dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daabo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye soomaalaay soomaalaay dulmiga lama rabay nabadda doondoona dadkaygow dadkaygow sicir barar lama rabee danyarta meeleeya tolkaygow dakana lama rabee nabadda doondoona iscafiya dalkiyo dadkan u tura diriirtan soo yaalka qaabkii looga daawoobi laha furo dariiqeeda dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye magaalada inoo deji allow daa'im baa tahaye caasimadda inoo deji allow daa'im baa tahaye muqdishaha inoo deji allow daa'im baa tahaye xamar cadeey inoo deji allow daa'im baa tahaye xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye tuulooyinka noo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabkashidan allow naga bakti daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korkhaad daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulkhaad daa'im baa tahaye awaaraha allow naga dulkhaad daa'im baa tahaye darcumada allow naga korkhaad daa'im baa tahaye cudurada allow naga dulkhaad daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye saandoonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye ducadeena ee bow ajiib daa'im baa tahaye aamiin iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii mahmaah waxaan ka bilaabaynaa dhagax meel dhowaas ku dhacaa dhawaqna meel dheer gelinkaaga dhaqo ceeb ma aha caana garoor qofkiisaas anfaca intaasi ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysada iyo maanta dhinaca farsamada iyo filimkaba waxaa inaga saaciday oo gacan buuxda inaga siiyey guuleed cabdisalaad khaarey iyo axmed cali xafaara wargeyska waxaa soo diyaariyey ish soo mariyey halkana ka soo jeedinayay anigoo amaki xaaji banaadir buurfuule banaadir baaba xaaji bacda hadhuuqso anigoo isku duwan waxaan idinku dhaafaynaa nabadin nool kulanti ammaana allah iyo kulanti dambe oo xiise leh yeegayaal daawadayaal ifiiriyayaal ijeedayaal idaymoodayaal aabbayaal hooyayaal aboowayaal abaayayaale
waqtigan oo kale haddii la gaarana waxaad iga barateen waxaad iga barateen waxaad iga barateen waxaad iga barateen gacantey maxaa ku jira fiiriya soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine soomaaliyey toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine taageera weligiine soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya min ras kamboni ilaa loobiyo cadde yaa rabbi iskumaa naga yeel yaa rabbiyow ummadda nabi maxamed aan nahay yaa rabbi ilaahow walaala inaan nahayna fahansii ilaahow qaluubteena isku fur ilaahow laabteena burcad isku mari abtiyow eesimo waa nahay ilaahow tafaraaruqaan kala firdhinaansaan yaa inaan kala fadhisnaano ilaahow rabbiyow raxmaanow ilaahow rabbiyow naga soo aruuri ilaahow mid hura naga yeel kuwii isfahmay oo isku maangnaqday ilaahow naga yeel yaa rabbi isku mida waa naga dhigti isku madha waa naga dhigti yaa rabbi isku maan naga yeel ilaahow canaantii cafi ka dambeesi yaa rabbi raxmaankeegiyow aamiin ilaahow rabbiyow inta jiran caafi ilaahow inta kurbeedsan kurbada ka qaad ilaahow rabbiyow inta muraad leh oo muraadkooda maal dadoo ahayn iyo wax kale ilaahow muraadkooda u sahal yaa rabbi ilaahow rabbi raxmaankeegiyow hamigayna kan ugu weyn ilaahow adduunka ha ka dhigin rabbiyow raxmaan oo barkee waxaa dacooyinkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa markuu nabiga salaad dugto wuxuu ku duceysan jiryaa la yidhi allaahuma laa tajcalnii dunyaa akbara hamina allaahuma laa tajcalnii dunyaa akbara hamina ilaahow hamigayna kan ugu weyn ilaahow adduunka ha ka dhigin yaa rabbiyow daawadayaal ii eegayaal ii jeedayaal aamiin dhaha aamiin dhaha aamiin dhaha haddana waxaa hee idin salaamay dhammaan wariyayaasha farsamo yaqaanada kaamiraystayaalka jilayaasha faaliyaha qaranka ama universal oo ugu horeeyo xaaji maki xaaji banaadir abwaan xaaji maki xaaji banaadir abwaan xaaji maki xaaji banaadir abwaan xaaji maki xaaji banaadir xaaji banaadir maxamed weli xaaji joon abwaane oo ku magaca dheer abba joonka allahu mustacaan abbaha fu'aad khowdhan aamina macow cabdulle ilaahu afkeyga been ka haay ilaahu afkeyga been ka haay farax cali wehliye yaan hilmaami allahu mustacaan yaan hilmaami cabdi khani tribul e waa soo galaalay us mar la soo galaa dhub laacibka afka mar dhawad soo galaa usne waxaa haddana idin salaamayo dhanka kaamirada waa axmed cali xafaara axmed xafaara waxaa kaloo idin salaamayo deeyaha diyaariyaha dejiyaha waa yarka sanadka jalaqsane guleed cabdi salaad kheerey iyo anigoo hadda magaceyga ah ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikheer